waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer askari loogu sameeyay macallin Salebaan Cabdullaahi Allah u naxariistay wax ka dhigi jiray dugsiyada sare ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer hadaba aaska qaran ee loo sameeyay macallin Salebaan Cabdullaahi ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne wax garad aqoonyahan qayb ka mid ah maamulka gobolka Togdheer dhamaantoodna waxa ay tacsi u direen qoyskii qaraabadii ehelkii uu ka baxay macallin Salebaan Cabdullaahi sidii macallinkayga qaaliga ahaa ee dhigi jiray Sheekh Bashiir secretary school macallin Salebaan Cabdullaahi ilaahay ha u naxariisto ehelkii uu ka baxay iyo dhalinyaradii Sheekh Bashiir cidii magaciisa iyo muuqiisaba taqaanay ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo waxaan leeyahay ilaahay qamriga ha waaseeyo ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiyo halkan waxa lagu tacsiideeyaa macallinkayga qaaliga ahaa wuxuu ahaa nin cilmi leh wuxuu lahaa nin hogaana macallin Salebaan Cabdullaahi oo in badan aan ardaygiisa ahaa waxaan ugu tacsiideeyaa ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda islaamka ah oo dhan inuu ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo geeridana waa lagu wada xukuman yahay wax allaale iyo wixii dhintay muslim ahna waxaan ugu baryayaa inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo laawayna la raajicin halkan waxaan tacsiiga dirnaa macallin Salebaan Cabdi oo ku geeri oo dhigi jiray kamid ahaa macallimiintii dhigi jirtay dugsiga Sheekh Bashiir ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo halkan oo ugu ducaynaa ilaahay raajicun ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayad quraan oo ku leeyahay kulli nafsi daaqatul mawt nafkasto dunida ku nool mawdka way dhadhabi doontaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahay jannatu firdawsaha geeyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda reer Soomaaliland ilaahay subhanahu wa ta'ala samir iyo iimaan ha ka siiyo wayna ilaahay raajicun halkan waxaanu maanta ka tacsiideynaa ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer geeriduna waa xaq ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa inuu godka u nuuro jannadii firdawsana geeyo ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland uu ka baxayna waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala zamriye iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un Sakariya Cabdiraxmaan Ibraahim shabakada wararka caalamiga ah ee Karin News magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.